asalaamu calaykum soo dhawaada khiyaaray waxaan rabaa inaan daqiiqada yar ku soo koobo laba muuqaal oo anigu aan la yaabay laakiin aan rabo idinkana inaad igala farcelisaan oo aad siday kula tahay bal nala wadaagto muuqaalka koowaad wuxuu ku saabsan yahay midkan waa gabar la joogta dameer raran oo weliba coostay siinaysa cod ayaa la dul saaray aniga waxaanan xaqiijin karin oo aanan hubin in codkan ay tahay gabadha hadlaysa iyo in kale laakiin waxaan hubaa in gabadha markaan gudaha muuqaalkeeda u galay ay tahay qof caadi ah oo soo baahisa inta badan muuqaalo iyadoo dameer la joogta fariin ayay diraysaa laakiin wax kaste waxa igu yaabka badan ee aan ka dhex maqlay fariinta waxay tahay caruurta gabadha u joogta ma aniga dhegahayga mase waad ila maqasheen bal ila daawada muuqaalka codkan si fiican ila dhegeyso qaybta aan u dan leeyahay waa qaybtaas idris beebe hal iigu sheer gareeyo videogan Soomaaliyeey waxaan idinka codsanayaa inaad iigu sheer gareysaan walaalkay idris beebe walaal macaan videogayga hadduu ku soo gaaro idriso waxaan haystaa 8 caruur 5 agoon ay 3 wacala ah 8 caruur ah 5 agoon ah iyo 3 wacala ah aniga ma fahmin 3 wacala ah iyo 5 caruur ah idinkaan idin dhaafaya ma muuqaalka ayaa codka la dul saaray mise waa mid sax maxay kula tahay adiga maxaas isleedahay dhacdada labaad ee aan social media maalmahan ku arkay oo aad kula yaaban kula wadaagay waxay tahay hooyo iyo gabdhaheeda ayaa waxay sameynayaan branki dabcan brankiga ay sameynayaan waa wax ay ku madadaalanayaan content creatorna ay ku yihiin oo muuqaal dadka ugu soo gudbinayaan laakiin mararka qaar halistan iyo dhacdadan oo kale ayaa kugu dhici karta haddii aadan ka fiirsan bal muuqaalkan ila daawo inta aanan faacilin ka samaynin 3, 2, 1. Oh, that bitch hot. Hold on. dabcan muuqaalka bilowgiisa waad aragtay waa iska caadi waa hooyo iyo gabdhaheeda challenge sameynaya ukun ayay biyo ku soo kariyeen eeg ayay biyo ku soo karsheen ama bayd qurbo sida u yaqaano kabacdi maxaa dhacay waxaa dhacday in la challenge gareynayo qofba marba uu ukunta cunayay laakiin ukunta qofka ugu horeeya marka uu qaado afka uu geliyey ukunta ayaa ku qaraxday ukumaha kale ukuntan gooni loogama karin oo waa la wada karshay biyo lagu wada kariyey kabacdina waa la keenay challenge sidaas ayaa loo qabtay hooyadii way xanaaqday wax alla waxay dhihi karta ayay dhahday laakiin gabdhahan miyay ugu talagaleen hooyadood in sidaan ay ku sameeyaan ama qofkan ugu horeeya ee challenge-ga qaatay mise ugumaysa talagaleen adiga bal isweydii